Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhowaad maanta waxaan ka hadli doonaa qaanka ay warshadaha casriga ay u sameeyaan caano boraha muuqaalkeena maanta waxaad ku dul istaagi doonaa tallaabo qaabka loo sameeyo caano booraha. Warshada caano booraha waxay isticmaashaa dhowr tillaabo oo taxaddar leh si ay u soo saarto caano booraha. Halkan waxaa ku qoran habka guud ee ay u sameeyaan. Hal ururinta iyo soo qaadashada caanaha. Warshaduhu waxay ka helaan caanaha xoolo tayo leh oo caafimaad qaba, kuwaas oo la hubiyo in ay nadiif yihiin, lana baaro ka hor intaan la keenin warshada. 2. Nadiifinta iyo kala soocidda. Caanaha la keeno warshada waxaa la soo mariyaa nidaam nadiifin oo laga soo saaro wasakhowga iyo walxaha aan loo baahnayn si loo helo caano nadiif ah. 3. Qoyaan bixinta evaporation. Caanaha waxaa la dhigaa mashiinada qoyaan bixinta, kuwaas oo ka saara biyo badan oo ku jira caanaha. Taas waxay ka dhigaysaa caanaha in ay noqdaan kuwo isku urursan, concentrated. 4. Qalajinta drying. Marxaladdan caanaha la qalajiyey waxaa la mariyaa mashiin qalajiye ah, spray dryer, oo u beddelaya budo. Mashiinkan ayaa caanaha ka dhigaya kuwo dhalaalaya oo engegan. 5. Sifeynta iyo buuxinta. Si aad wax badan halkan ugu faa'iido fadlan ila saaxiib oo kanaalkan subscribe saaro muuqaalkana like saar mahadsanid. Boodhka caanaha ayaa la sifeeyaa si loo hubiyo in uu yahay mid sax ah. Kadibna waxaa lagu buuxiyaa baakado ammaan ah oo ilaalinaya tayada iyo cimri dhererka badeecada. 6. Baaritaan iyo tijaabin. Tallaabada ugu dambaysa waa baaritaan tayo si loo hubiyo in badeecada caanaha ay ku jirto heerka la rabo ee caafimaadka iyo tayada. Kadib waxaa lagu ridaa suuqyada loogu talogalay.